haddii aad maqli jirtay gaari aysan xabadda karin, hadda waxaa soo baxay qof bini'aadan ah oo aysan xabadda karin si walba uu isugu dhufto. intaanan gudaha u gelin muuqaalkeena aan ku xasuusino haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. askarigan oo u dhashay koonfurta Suudaan ayaa soo duubay muuqaal uu ku sheegayo in aysan xabadda karin isagoo adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan, asagoo qoriga caaradiisa afka gelinaya kadibna isku dhufanaya xabadda, isagoo aysan dhibaato weyn ka soo gaaraynin arrintaas sida ku muuqata. hadda waxa uu soo qaatay qori AK-47 ah, wuxuuna geliyay afkiisa wuxuuna isku dhuftay xabaddii ayuu sideeda u soo tufay. bastoolad ayuu soo qaatay, bal ila eeg waxa dhici doona. sideedii ayuu u soo tufay xabaddii. askarigan ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inuu ka difaaco madaxweyne Salva Kiir cid kasta oo soo weerarta, ayaa noqday mid aad loola yaabay. khubaro dhanka hubka ayaa wax laga weydiiyey, waxayna sheegeen in ninkani hubka uu adeegsanayo ay yihiin dheemish, aysan ahayn kuwa saxda ahaa, lagana dareemi kara dhawaaqa xabadda sida ay u dhacayso.